الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى ودرسigii shan iyo tobnaad oo noqon doona dersigii labaad ee aynu insha allahu tacaala ka qaadano baabulxajbi. dersigan waxaan insha allahu tacaala in ku qaadan doonaa qawaacidu xajbi lxirmaan, qawaacidda uu leeyahay xajbulxirmaanku. kadibna insha allah waxaan raacin doonaa jadwal inoo cadayn doona qaabka ay isu xijaabayaan dadka uu galo xajbulxirmaanku, waayo xajbu nuqsaanku isagu waa fudud iyo inaga soo sheegnay warkiisa. xajbulxirmaanku qawaacid buu leeyahay. qawaaciddaasi qofku waxay u sahlayaan si yaroo fudud inuu u fahmo dersiga. marka qawaacidda waan qoray, insha allahu tacaala waynu arki doonaa iyadoo dhammaystiran. qaacidada koowaad waxay tahay qaacidatul usuul, qaacido ku saabsan dadka laga farcamay ee usuusha ah oo ah waxa weeye aabbayaasha iyo hooyooyinka. qaacidadu waxay tahay al-usuulu laa yaxjubuhum ila al-usuul, usuusha ma xijaabi karo cidaan usuul ahayn. addakaru biاddakar, labka labbaa xijaaba, waalunhaa bilunhaa, dhadigana dhadig baa xijaaba. marka usuusha usuulun baa xijaabta, waxa weeye labku lab buu xijaabayaa, dhadiguna dhadig buu xijaabaya. tusaale ahaan haddii qofku ka tago abun iyo jaddun, hadda waa laba dakar oo labaduba usuul ah, way isxijaabayaanoo kooda dhowaa markaa wax xijaabaya. aabbaha noqonaya casabo, awowgana maxjuub. marka al-usuul laa yaxjubuhum ila al-usuul, labku marka lab buu xijaabayaa. tusaalahan bixiyo kale, dhadiguna dhadig buu xijaabayaa, sida ummun iyo jaddatun oo kale. ummun baaqigay leedahay, jaddatunna waxaan leeyahay ummun waxay leedahay thuluth, cafwan, jaddatunna waxay noqonaysaa maxjuuba. qaacidada markaa waxaa hoos timaada qaacida farciya, waxay tahay kullu aslin yaxjubu man fawqahu ida kaana min jinsihi, asal kastaa wuxuu xijaabayaa cidda ka sarreysa hadduu la jinsi yahay. waa qaacidada horuba lasii gudagalay asal kastaa waa aabbiyo hooyo, awowiye ayeeyo wayn calaa, haba sarreeyaan labada dambe. aabbiyo hooyo iyo awowiye ayeeyo wayn calaa ama wayn calaya, labadaa dambe haba sarreeyaane asal kastaa cidda ka sarreysu xijaabaya hadduu la jinsi yahay. waa intaan tusaalaynay aabbuhu awowgu xijaabayaa, hooyana ayeeyay xijaabaysaa, waayo waa isku jinsi. hase yeeshee talantaaligu ma shaqaynayo oo hooyadu awowga ma xijaabi karto, aabbana ayeye ma xijaabi karo. qaacidatulfuruuc, qaacidada furuucda ku saabsan. furuucdu waxa weeye cidda kaa tafiirantay ama cidda meydka ka tafiirantay. waxa weeye alfuruucu laa yaxjubuhum ila alfuruuc, furuucda ma xijaabi karo cidaan furuuc ahayn. oo furuucdu waa afar qofuun, waa alibnu iyo albintu, ibnulibni iyo bintulibni, wain nazala, haba hooseeyaan labadan dambe marka iyagunbaa isxijaabi kara, cid kale ma xijaabto. marka qaacido faracay leedo, taasa lagu fahmi karaa warkee. qaacidada faraca waxay leedahay kullu dakarin, lab kastaa oo min alfuruuci furuucda ka mida, waa ibniga iyo ibnulibnige, yaxjubu wuxuu xijaabayaa man taxtahu cidda ka hooseysa, mutlaqan gebi ahaanba. mutlaqan waxaa laga wadaa ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo. lab kastaa wuxuu xijaabayaa cidda ka hooseysa, ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo ciddaasi. tusaale ahaan imaka haddii aad hayso ibnun iyo bintulibni, waxaan leenahay de ibnigu hadda waa dakar furuucdii ka mida. bintulibnigu markaa way ka hooseysaa, markaa isagaa noqonaya caasib. bintulibni waa maxjuuba, waayo waa taxtahu, way ka hooseysaa. waxaa lamid a imaka tusaale ahaan ibnulibni ayaa la hayaa. waxaa kaloo la hayaa bintu ibnilibni, ibnilibni. marka ibnigaas isagaa noqonaya casabo, tanna wuu xijaabaya, way ka hooseysaa. ama lab ha noqoto ama dhadig, cidda ka hooseysa waa isku mid. oo haddii tusaale imaka la hayo ibnun iyo la hayo ibnulibni, ibnigaa xoolaha qaadanaya, ibnulibnina waa maxjuub. marka waa qaacidada faraca ayaa insha allahu tacala ku dhaafi doonaa.
قاعدة الحواشي حواشي قاعدة قاعدة وين بالله هاي الحواشي يحجبهم وها حجاب الأصول أصلد وي حجاب كران فروع والفروع فروع وي حجاب كران إيه والحواشي حواشي انتبع أن أصوشا حجابيسا أصوشا waxa looga jeedaa الذكور أصوشا labka الأصول الذكور أصوشا labka waa xijaabta أن فروعda lab iyo dhadigba way xijaabaan xawaashida wax kamid ah oo xaalado kala leedahay laakiin dhadiga qudhooda waxay xijaabi karaan furuucdahay xawaashiduna iyadoo qudhooda markaa way xijaabtaa marka qawaacida فرع lagu garan karaa قواعد ثلاثة فرعية قاعدة كوباد waxa leeyahay كل ذكر من الفروع lab kasto kamida furuucdii يحجبه حجابيا جميع الحواشي dhamaan xaashiyada xaashiyadu ay ahaayeen waa ukhuwada iyo cumuumada labada qolo la isu geeyay dhamaan waxa xijaabaya furuucda hadii furuuc ay lab yihiin maxaa laga wadaa waa ibniga iyo ibnul ibni وإن نزل هبه هوسيه لبدا قف ويان لبدا قف waxay xijaabayaan dhamaan xawaashida maxaa laga wadaa uquwadii akh shaqiiq akh li ab ukhtun shaqiiqa ukhtun li ab waxa weeye marka akhun li ukhtun li ammun shaqiiq ammun li ab ibnu am shaqiiq ibnu am li ab wixii iska si hooseeyay si daadega dhamaanba wax xijaabay labada qof way xijaabi karaan marka waa qaacido kulliyo fiican weey qaacido kale كل ذكر من الأصول يحجب جميع الحواشي لب كستو كميدا أصوشة وأبي أووي وحي حجابيان حواشي دا أردن الأبو أديما كاد حيصه إيو الجد لبدا الروحنا دمان وي حجابيان حواشي دا هدي كل مان أب إيو أخو شقيق أخا الحجابية أب يا عم شقيق أب عم لأب أب وعم صالحان ابن عم شقيق dhamaan xawaashida waa ka adag yaabaha iyo uguba qaacida ku sii xigta faraca waxay noqonaysaa kullu far'in dhakaran kana aw unsa yahjubu awlad al-umm mutlaqan kullu far'in farac kasta dhakaran kana aw unsa dhadig ha ahaado amaba ha ahaado lab yahjubu xijaabaya awlad al-umm caruurti hooyadu ay dhashay mutlaqan gabi ahaanba مطلقا waxa laga wadaa ama ha noqdaan dhukuran ama inaasan jamcan aw mufradan waa isku mid farac kaste ama laba noqdo ma dhidig ha noqdee uu ka adeegi awlaadul umka tusaalahan hadii marka qofku uu dhinto uu ka tago bintun iyo wuxuu ka tagay akhun li bintadu waxay leedahay nisfi akhun li waa maxjuub waayo faraca xijaabayay farcu ha noqdo lab ama noqdo dhidig hadda waa bintune hadii laga dhigo ibn waa lamid hadii laga dhigo ibn waa lamid hadii halkan laga dhigo ukhtun li waa lamid hadii laga dhigo koox oo noqoto akhun li akhun li ama akhun li iyo ukhtun li waa isku mid lab farac kasta ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo wuu xijaabaya awlaadul halkan hadal yaro aan qaacidana ahayn baynu ku khatinay oo laakiin muhiim ah yuqaddamu bayna al-'asabati bil-jihati thumma bil-qurbi thumma bil-quwwa hadalkan soo marnay weeyi casabada dhexdeeda qaabka loo kala horumariyo mar jihada lagu horumariya hadii jihadu ay midowdo waxa lagu sii xigsiyaa qurbiga hadii kalena quwada jihada maxaa laga wadaa halkii meeris baa lagu ururin jiray shan jihay ahaayeen bunuwatun ubuwatun ukhuwatu umumatun wa dhulwalad tatimatu hadii midkood labada qof oo tusaalahaan bunuwada ku jiro midna ku jiro umumada waxa weeye marka waa laga qaadaya oo bunuwada qaadanaysa sida loo kala horeeyo soo marnay warkeedu sharaxan hadii jihada laga midoobana qurbigi hadii sida yaani meedka lagu kala dhow yahay hadii laga midoobana kadibna awood oo waa sida dhul qaraabateynka ayaa noqonaya mid ka awood badan min saaxib alqarabati alwaahida tani marka qaacido waxay soo isgelaysaa inta horown wax cusub maaha laakiin min baabi tadkiir وحسوسين كليه وي waxaanu sii raacin doonaa المحجوبون حجب حرمان dadka lagu xijaabay xajbu xirmaanka in soo haynay qawaacidooda inaan haddana sheegno iyaga laftooda iyo sida iyo cidda xijaabaysa waa jadwal laakiin qawaacida horun baa lagu binaynaya
waxa lama xifdiyi kara waxa weeye culimadu way taxaan laakiin qawaacidda muhiim in lagu qaybo oo lagu xifdiyo 19 qof weeyaan waayo 25 qof bay ahaayeen dhaxlayaashu 25ka qof waxaa jira waxa weeye dad aanu geli karin marnaba xajbu xirmaanku waynu soo marnay oo kala ahaa aabaha iyo hooyada iyo inanka iyo inanta iyo zawjaanka labada lamaane 6 qof ma galo marka 25kii qof hadii laga jaro 6 qof waxa soo hadhaya 19 dhamaantood uu gelayaa xajbigu xajbu xirmaanku hase yeeshee dee mid kaste ama qof kastaba cid baa ka adag oo xajbu xirmaan gaarsiin karta wala kala duwan yahay haddaba aynu ku bilowno ibnul ibni wa in nazala ibnul ibnigu ama haba hooseeyo ibnul ibnigu ha noqdaba ibnul ibni ama wax kasii hooseeye laba qof baa xijaabi kara alibnu iyo kullu ibnin aqraba minhu inanka iyo inan kasta oo kasii dhow kullu ibnin ee laga wadaa aqraba minhu inan kasta oo kasii dhow waxaa laga wadaa hadduu isagu yahay ibnul ibni waxaa ka adkaanaya ibnul ibniga sidoo kale marka waayo hadda waxay wadaagaan jihadii bunuwada marka waxaa la eegayaa qurbiga ibaado la eegaya haddii qurbiga ka sinaadaanna xoolaha way qaybsanayaan waayo iyagu ma yeelan karaan wax loo yaqaano quwa ma kala awood badna waayo dul qaraabatiin ma jiro wax loo yaqaano halkan oo kale bintul ibni wa in nazalat haba hooseyso bintul ibnudii laba qof baa xijaaba waa alibnu iyo albintani fa akthar idaa lam yakun maca binti libni mucasibun waxa xijaabaya ibniga oo haddii ay kulmaan ibni iyo bintul ibni ibniga xoolaha wada qaadanaya bintul ibni waxay noqonaysaa maxjuuba sidoo kale bintaan haddii la helo way dhacaysaa bintul ibnidu tusaale ahaan haddii bintaani la hayo iyo bintul ibnidaas waxay noqonaysaa maxjuuba bintaani waxay qaadanayaan thuluthaan waa haddii aan la helin mucasib haddii mucasib loo helo bintul ibnida uu badbaadinaya waana akhuuha ama ibnu camiha ama alanzalu minha in ixtaajat ilayhi aljaddu waxaa xijaabaya laba ruux alabu iyo kullu jaddin aqraba minhu jad kasta oo ka dhow waayo jadka hore waxaan soo marnay alusuul laa yaxjubuhum ila alusuul marka waxa xijaabi kara un aabbo ama awow kalo ka dhow aljaddatu waxaa xijaabaya laba qof alummu iyo kullu jaddatin aqraba minha alummu hooyadu hadday la kulanto jadda hooya xoolaha qaadanaysa markaa thuluska jaddana waa maxjuuba hadday kulmaan laba jaddo jaddo thaaniya iyo mid raabica hadday kulmaan thaaniyada ka dhow xoola qaadanaysa alakhu shaqiiq laba ruux baa xijaaba laba ruux hadda maaha waa laba qolo kullu farcin dakar farac kastoo lab ah waa ibnin iyo ibnul ibni wain nazala haba hooseeyo iyo kullu aslin dakar waa alabu iyo aljaddu wain cala haba sareeyo alukhtu shaqiiqa laba qolaa xijaaba kullu farcin dakar iyo kullu aslin dakar waa kullu farcin dakar waa alibnu iyo ibnul ibni wain nazala kullu aslin dakarna waa alabu waljaddu wain cala alakhu liab waxa xijaabaya afar baa xijaabaya kullu farcin dakar waa farac kastoo lab ah waa alibnu iyo ibnul ibni iyo kullu aslin dakar waxa weeye alabu iyo aljaddu wain cala iyo alakhu shaqiiq iyo alukhtu shaqiiqatu alcaasibatu maca alghayr ukhtada shaqiiqada ee baaqiga qaadata cid kale la jirkii markaa tan dama u baahan inay yara baraarujino waayo akhun shaqiiq inuu ka awood badan yahay akhun liab hore waan soo marnayba waayo waxa weeye kani waa dul qaraabatayn kana waa dul qaraabatin waaxida hadda laakiin waxa u baahan la yara baraarujiyo uun ukhtun shaqiiqa hadday noqoto casabatu maca alghayr way ka adag tahay akhun liabka iyo waxa ka dambeeya o dhanba tusaale ahaan waxaynu haynaa ukhtun shaqiiqa iyo bintun iyo akhun liab ukhtun shaqiiqa hortu bintun nisfiga si akhu shaqiiqana casabatun maca alghayr walakhawaatu in takun banaatu fahuna macahuna mucasibaatu akhun liabna wuxuu noqonayaa maxjuub waayo hadda waa laba casabo ukhtun shaqiiqana waa casabo akhun liabna waa casabo marka ukhtun shaqiiqa markay casabo noqoto waxay la mid noqonaysaa alcasabatu binafsi oo halkii walaalkeed akhun shaqiiq oo kale noqonaysaa marka wax allayaalo waxay ka xoog badan tahay
way dhaadhicinaysaa. saasa xaalku marka uu noqonaya. al-ukhtu liab iyadana waxa xijaabaya 5 qof, farac kasta oo lab ah waa alibnu iyo ibnulibni wayn nazala. asal kastoo lab ah waxa weeye al-ab waljaddu wayn cala. akh shaqiiq isaguna wuu xijaabayaa ukhtun liabka. al-ukhtu shaqiiqa alcaasibati maca alghayr, ukhtu shaqiiqa oo welibana caasiba maca alghayr ahayd, iyaduna ukhtun liabka way ka adag tahay. horey usoo baraarujinay arrinta noocaasa. tusaale ahaan haddii bintun ay tahay iyo ukhtun shaqiiqa buu ka tegey iyo ukhtun liab, bintu waa nisfi, ukhtu shaqiiqana waxa weeye casabatun maca alghayr, ukhtun liabna markaa waa maxjuuba. waxaa kaloo xijaabaya ashaqiiqataani fa akthar idaa lam yakun maca alukhti liab mucasib. labada shaqiiqay waxa ka faraa badan haddii aanay helin mucasib. ukhtun liabku haddii mucasib hesho markaa way badbaadaysaa. tusaale ahaan haddii la hayo ukhtaani shaqiiqataan baynu haynaa, waxaynu kaloo haynaa ukhtun liab ayaynu haynaa. ukhtaani shaqiiqataani waa thuluthaan, ukhtun liabna waa maxjuuba. haddii laakiin loo helo walaalkeedu u badbaadin karaa. al-akhu aw il-ukhtu lium fa akthar, akh lium ama ukhtun lium ama wax ka fara badan. awlaad lum laba qolun baa xijaaba. kullu farcin farac kaste dakaran kaana aw unsaa, lab iyo dhadiku doona ha noqdo. bintun iyo ibnun, bintulibni, ibnulibni intu way ka adeegyihin awlaadulumka. iyo kullu aslin dakar, asal kastoo lab ah waa alabu iyo aljaddu wayn cala. ibnulakhi shaqiiq wain nazala waxa xijaabaya waxa weye 7 qola xijaabaya. waa qawaacidin kusoo marnay, wax markaa sharax uma baahna. waa farac kastoo lab ah waa ibni iyo ibnulibni. asal kastoo lab ah waa alabu iyo waljaddu wayn cala. alakhu shaqiiq iyo alakhu liab iyo alukhtu shaqiiqatu alcaasibatu maca alghayr, iyada qudheedu way ka adag tahay oo wanaga nidhi waxay noqonaysaa halkii walaalkeedu kala gelaysaa, kadibna way riixaysaa wax alla waxay ka adag tahay. alukhtu liab alcaasibatu maca alghayrna sidaas leeg, hadday noqoto ukhtu liab caasiba maca alghayr way ka adag tahay ibnu akhi shaqiiq iyo waxa la midkaa. tusaale ahaan waxaynu haynaa bintun, waxaynu kaloo haynaa ukhtun liab, waxaynu kaloo haynaa ibnu akhin shaqiiq. bintun waa nisfi, ukhtun liabna waxa weeye casabatun maca alghayr. walakhawaatu in takun banaatu fahuna macahuna mucasibaatu. ibnu akhin shaqiiqna wuxuu noqonayaa maxjuub. waxaa kaloo xijaabaya kullu bni akhin aqraba, ibni akh kastoo isaga ka dhow, ama ha noqdo ibnu akh shaqiiq ama ha noqdo ibnu akh liabe. isageed wuxuu ihi mutlaqan gebi ahaanba, yacni waxaa isku mid a ibnu akhin shaqiiq ama ibnu akhin liabku doona ha noqdee, haddii kaa uu ka dhow yahay wuu xijaabaya. maxaa laga wadaa hadduu ka dhow yahay? dee hadduu yaro fogaado kani, tusaale ahaan uu noqdo ibni akhin shaqiiq buu noqdo, kana waa ibnu akhin shaqiiq ama waa ibnu akhin liab, wuu xijaabaya. qofka kusii xigaa wuxuu noqonayaa ibnu akhin liab way nazala haba hooseeyo. 8 qof baa xijaabaya. farac kastoo lab ah ibni iyo ibnulibni, asal kastoo lab ah alakh shaqiiq iyo alakhu liab. ukhtu shaqiiqa alcaasibatu maca alghayr, alukhtu liab alcaasibatu maca alghayr. ibnu lakhi shaqiiq iyo kullu bni akhin aqraba minhu mutlaqan, ibnu akh kastoo ka dhow isaga, haddii kaasi uu dib dhaca weeye oo noqdo ibnu ibni alakhi liab. waxaa kusii xigaa alcamu ashaqiiq, waxa xijaabaya 8 qolo. waxa xijaabaya farac kasta oo lab ah waa alibnu iyo ibnulibni. waxaa kaloo xijaabaya asal kasta oo lab ah waa alab iyo aljaddu. alakh shaqiiq baa xijaabaya, alakhu liab baa xijaabaya, alukhtu shaqiiqatu alcaasibatu maca alghayr, alukhtu shaqiiqatu alcaasibatu maca alukhtu liab alcaasibatu maca alghayr. ibnu lakhi shaqiiq wain nazala, kii ka horeeye kan uu ka xoog badan yahay, waay kan waa cumuuma, kaasina wuxuu ahaa ukhuwa. ibnu lakhi liab wain nazala intu way xijaabayaan. alcamu liab waxa xijaabaya 9 qolo. farac kasta oo lab ah, asal kastoo lab ah alakhu shaqiiq, alakhu liab baa xijaabaya, alukhtu shaqiiqatu alcaasibatu maca alghayr, alukhtu liab alcaasibatu maca alghayr. ibnu lakhi shaqiiq alcaasiba wain nazala dheh, ibnu lakhi liab wain nazala iyo alcamu shaqiiq inta way xijaabayaan.
alcamu shaqiiq wuxuu ku xijaabaya alcamu liab, waayo kani waa dul qaraabatin, kana waa duu qaraabatin waaxida. waxaa kaloo la xijaabaya ibnu lcami shaqiiq wain nazala, waxaa xijaabaya kulu farcin dakar, kulu aslin dakar, alakhu shaqiiq, alakhu liab, alkhtu shaqiiqatu alcaasibatu maca alghayr, alkhtu liab alcaasibatu maca alghayr, ibnu lakhi shaqiiq wain nazala ibnu lakhi liab wain nazala, alcamu shaqiiq, alcamu liab, iyo kulu bni camin aqraba minhu mutlaqan. ibnu cam kastoo ka hooseeya ama ha noqdo ibnu cam shaqiiq ama ibnu cam liabe, kaa wuu xijaabaya, waayo hadduu kaasi noqdo ibni alcami shaqiiq oo la helo ibnu camin shaqiiq ama ibnu camin liab, dee waa la xijaabayaa. kan yaro hoos u dhacay waa la xijaabaya. ruuxa kusii xigay 15 wuxuu noqonayaa ibnu lcami liab wain nazala, 12 qof baa xijaabaya. kulu farcin dakar baa xijaabaya, farac kastoo lab ah waa ibni iyo ibnulibni, asal kasta oo lab ah waa alabu iyo aljad wain cala, alakhu shaqiiq baa xijaabaya, alakhu liab, alkhtu shaqiiqatu alcaasibatu maca alghayr, alkhtu liab alcaasibatu maca alghayr, ibnu lakhi shaqiiq baa xijaabaya wain nazala, ibnu lakhi liab wain nazala, alcamu shaqiiq, alcamu liab, ibnu lcami shaqiiq, iyo kulu bni camin aqraba minhu mutlaqan. ibnu cam kastoo ka hooseeya haddii kaasi hoos u dhaco weeye, kaas hadduu noqdo ibni lcami liab, waxaa xijaabaya kuwa ka hooseeyo ibnu lcami shaqiiq, ibnu cami liab. labada ruuxee u dambeeyo wada socda waxay noqonayaan almuctiqu iyo walmuctiqa, xoreeya iyo xorayso. iyaga waa laga adegiyo, aad baa looga adegiya. xoreeyo xorayso waxaa xijaabaya 12 qof, waxaa xijaabaya farac kaste ama ha noqdo laba ama ha noqdo dhadig, lama raacinin dakar. kulu farcin mutlaqan baad leeday, kulu aslin mutlaqan waa hooyiye aaba iyo awoye ayay intu way ka adeg yihiin. sidoo kale alakhu shaqiiq baa xijaabaya, alakhu liab baa xijaabaya, alkhtu shaqiiqatu mutlaqan baa xijaabaysa, ama yani ha noqoto caasiba maca alghayr ama ha noqoto waaritha bilfardi. alkhtu liab baa xijaabaysa mutlaqan, waxaa laga wadaa ama ha noqoto casaba ama ha noqoto waaritha bilfardi. ibnu lakh shaqiiq baa xijaabaya, ibnu lakh liab baa xijaabaya, alcamu shaqiiq, alcamu liab, ibnu lcami shaqiiq, ibnu lcami liab. marka ruuxa muctiqa inta ay joogto cid qofkan dhaxli karta oo nasab ku dhaxlaysaa, waxa weeye markaa waxa weeye waxba dhaxli maayo ruuxaasi. waxaa halkaa markaa ku muuqda lambarkii 16aad, halkaan idinku iri 19 qof ayaa la xijaabaya. hadda waxaa ku muuqda 16 qof, inta kale maye. waxaan leeyahay 3 baa dib loogu celiyey oo 6 qof baa laba la isu raaciyey. hadda waxaa israacay almuctiq walmuctiqa, mid bay isku noqdeen. sidoo kale aljaden soo marnayo lama kala qaadin, aljadatu liab iyo aljadatu lium, mid bay isku noqdeen. sidoo kale waxa la israaciyo culimadu ay israaciyaan waxa weeye markaa alakhu lium iyo alkhtu lium, labadan waa la israaciyaa, lama kala reebo. oo markaa halkaa waxay noqonaysaa 19 qof, 3 in markaa dib loogu celiyey marka ay noqotay 16 sidaa ay ku noqotay. marka haddii la kala faahfaahiyo la kala qadqaado marka waxay noqonayaan 19ka. muctiqa iyo muctiqada la kala qaadaya, alakhu lium iyo alkhtu lium baa la kala qaadaya, aljadatu liab iyo aljadatu lium baa la kala qaadaya. waxay noqonayaan markaa 19. 6da soo haray markaa ma gelayo xajbu xirmaanku. والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد.